waxaa caawa bishu tahay 19 bishii koowaad 2015 magaalada Boorama loogu qabtay ardayda macadka Almanaar xaflad ballaaran. marka hore xafladda lagu furfuray Quraanka Kariimka ah. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء الله لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. بعد قرآن waxaa xafladda ka hadlay sheekha weyn ee qaariga ah Sheekh Xuseen Nuur Qalinle. sheekhu waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda Quraanka Kariimka ah. waxaa hadaladiisii ka mid ahaa raaciya kitaabka Ilaahay ku camal fala Ilaahay subxaanahu wa ta'aala darajo weyn uu gaarsiiyey darajada uu gaarsiiyeyna maartay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. آيات كور رسولها آيات كانوا عجائبا ويقصوا قصة إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء هو قرآن كتاب وعمل فلوي قرآن كتاب معنيه سبعتين هو عمل فلوي إلهي سبحانه وتعالى هو علم كتاب قرآن وعمل فلوي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. القرآن كمارك وحويان كلام إلهي كشرف المجاري الدنيا آخرة وشرف المجاري كتبتي هوري وكشف مارك كشرف وياي قرآن الكريم هو كتاب إلهي حكيم كها والنور كي عطايا مارك حاجة لكي بدي. sidoo kale madasha ka hadlay arday ka mid ah ardayda macadka Almanaar waxa uu si aad ah ugu hambaliyay macallimiinta iyo maamulka isagoo ka sheekeeyay muddadii koobneed ee uu macadku furnaa waxa uu ka faa'iideystay. waxaa isagna microphone-ka lagu soo dhaweeyay macallin ka mid ah macallimiintii wax ka dhiga macadka Almanaar oo lagu magacaabo Macallin Maxamed Barkhad. isagna waxa uu ka warramay xaaladda guud ee macadka isagoo u hambaliyay ardayda ay jawaa'ista abaalmarinada guddoonsiiyeen ardayda kalena dhiirigeliyay. waxaa isagna hadaladiisii ka mid ahaa hal aayad haddaad xifsan tahay macnaheeda iyo lafdigeeda in aad gudbiso waa shay waajib waayo qofku waxa uu ka helayaa fadli fara badan. nabiguna calayhi salaatu wasalaam cali bin abi taalib wuxuu ku lahaa markii dacwadda u diray lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam nabiga calayhi salaatu wasalaam. hidaayada waxaa ka mid ah qofka bini'aadamka oo jahliga laga saaro oo cilmiga la baro. marka macallimiintu tallaabada ama dariiqa ayay socdaan in ummadda jahliga ka saaraan. laakiin waxaan leeyahay maanta waa fursad baa la haystaa ee laga faa'iidaysto. berigii hore cilmiga waxa weeyaan dhibaato iyo rafaad baa loo mari jiray waa loo safri jiray oo cilmiga waxa weeyaan rafaad badan iyo magaranaysaa tacab fara badan baa lagala kulmayay. laakiin maanta macallimiin baa diyaar ku ah deriskaagii wax lagu dhigayaa guriga kugu noolba wax lagu dhigayaa. runtii waxa weeyaan macadkani xaafadda u furan yahay wuxuu u furan yahay magaalada wuxuu u furan yahay magaalada Awdal gobolka Awdal buu furan yahay. cid kasta oo maaragtay diyaar waa cilmiga macallimiintu waa diyaar bay ku yihiin gacmo furanna way nagu soo dhawaanayaan. intaasaan ka soo baxay wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum. waxaa sidoo kale madasha la isku weydaarsaday murti iyo suugaano waxaana ka mid ahaa murtidii xafladda يعني نشاف من أضيع صدح أنا جري صدح نوم كي جري صدح نوم كي يسجل الله سيجاري من أضيع صدح أنا جري صدح بالبيجا جري صدح نوم كي يسجل الله سيجاري أيام
صدق هذا الله يوحد جمال أرضنا لكن أرض مصباطه أرض بسم الله الرحمن الرحيم كل أنا أسكت سؤال شوال الصيني كثوا كربين كرتان هذا السؤال سؤال سؤالية في سؤال يكون غاية تلوين تري يكون وسط كمبر أو كوسس في كدالة يولا الكدالة يولا الكدالة فاسن مرنا الشيء كلام حسن لو ماشي هو سقال مسلول وفرية ما واحد في يا شيخ أنا قاعد يا الله وسط كل واحد odayaashii hore xikmadahoodii bay ka mid tahay marka odaygaasi la sii fogay baa laga yaabaa ilaa 100 sano 200 sano laga jooga laga yaabaa wuxuu yidhi saddex anaa soo gaadhay saddexna inankayga ayaa soo gaadhay oo la dhaqmaya waqtigiisa saddexna inankaygiisa ilaahay joojin jiray markaas isagoo warkaa uu soo gaadhay waxa weeye wuxuu yidhi haddii xoolo la isku qabto waxaan soo gaadhay inuu farda la isku qabto oo waxa xoolaha la isku hayaa farda yahay haddii guur la doonayana in gayaan la guursada soo gaadhay haddii maartay arrin in laga hadla doonayaan oo ka taliyaan raga radu qaabatay oo ka taliya ayaa soo raga garba cadaada madaxa cadaada oo ka taliya soo gaadhay saddexna waxa soo gaadhay inankayga haddii xoolo la isku qabto inuu geel la isku haysto ayuu inankayga soo gaadhayaa haddii arrin laga hadlayana garmadoo ka hadlo haddii guur maaragtay la guursanayana macas tahay u leegtaa oo loo eegeynba ma qurux badan tahay u leegtaa waa loo eegeynba xag kaleba loo eegay gayaabna loo eegay waa kale waa say ku dhaqmi jireen marka iyagu inankayga inkiisu lagu soo gaarayaa buu saddex buu soo gaaraya haddii xoolo la isku qabto dhul la isku qabto jaga iyo wax la isku haysto ay tahay iyo beer iyo wax la haysto oo marka fadhiyo u tagayo geelda u tago la isku haysto maanta waxa la isku haystaa waa dhul haddii maaragtay arrin laga hadlayana garmadaysu laga taliyo yani dhalinyar inka kacayso arrimaha ka taliso garka usoo fiixi haddii guur la yidhaahdana dee kolkii hore qurux bay ahayd imiga qurux ma jirto ma yani ma dalooshan waa gabagabadii waxaa madasha xafladu ka dhacaysay ka hadlay maamulka macadka almanaar sheekh asad muuse kibaar waxa uu sheekhu u mahadnaqay macallimiintii ardaydii iyo marti sharafta kale ee kasoo qayb gashay xafladan loo qabtay ardayda macadka almanaar waxaa sidoo kale sheekhu mahadnaq gaara u jeediyey isuduwaha wasaaradda awqaafta ee gobolka awdal sheekh xaamud hadaladiisii sheekha waxaa ka mid ahaa arday wuxuu u baahan yahay in la tashjiiciyo yani marka oo cilmiga marka lagu dhiiriyo runtii maaragtay aad u mahadsan culimadii ka horreysay walaalkay sheekh xuseen qaliinle xafidahullah iyo sidii wanaagsan marka uu noo waaniyey culimadu waa ka hadleen fadliga cilmiga marka waxa weye xafladan waxaan u mahadnaqayaa martidii nagala soo qayb gashay iyo ardayda iyo dhammaan maaragtay waxaan kaloo u mahadnaqaya isku duwaha wasaaradda awqaafta sheekhaynii markaa waxa weeye sheekh xaamud oo isaguna hawsha qaarkiisa ugu maqan oo markaa inala soo hadlay oo inaga mashquulay isagana wajazaakum allahu khayran baan leenahay marka macadkan waxaa la furay bishii Sebtembar 8 2014 sida la dareemi karo 5 bilood oo xoogaa weeyaan wuxuu soo saaray dafcadii markaa wuxuu soo saaray arday markaa waxa weeye tamhiidi ganacsiga tamhiidiga ugu horeeya arday aad u fahansan oo wanaagsan kulli ardayda qaar waxay isugu jiraan fasal farta la barayo iyo laba fasal markaa fasalka marka tamhiidiga kulli 6 bilood waxa loogu talagalay fasal in laga dalaco
إن شاء الله لما صار يبرق دبلنا وحلا بحين دون عرضين كوليستا وحلا سين دون الشهادوين أي الله سين دون عشان لقوا دواجه مادوين كلا كل جري ومادوين دينية عربي يعني ما رأيت لقادي فقهي حديثي مصطلح الحديث أصول الفقه علومتي الشريعة وردن أي الله برمية وجدوا هذا كلا قال لي وحنا إلا هرو جيز بركة مسلمين ودين إلهي وقرقارة ودين إلهي برتوع علم النقضة إلا هرو وجدوا التاوية مركا كل واحد مركا حسوسين هنا أرضينا إن آدوا دذالو ما عاد كان لقى فائدة سرتي وقتي كان وقتي وناكسن هبيل ويان بعد المغرب بالله قليا إلا سديد يفرق ما يلاصق لك بحيا ووقت فوق فائدة سكر ويان مركا إن آدوا فائدة ما عاد كان لكن أرضينا أنا مركا وحوي وجه كذلك سقالك أرضي بور جائزة إليا يجوا حوي تشجيع بينطعي هو الله ذلك دونا وحويان ماركي ساي ولله ذر القائل رأيت العلم كريم صاحبه ولو ولدت آباء لآم وليس إنسان يرفعه إلى أن يعلم أمره القوم الكرام إمام الشافعي رحمة الله عليه أيات ديوان سبحانه الله وحنا في علمك قف كبرتين الكريم ياهي قف آدو شرف بدر آدو دين بدرين ياهي مركا وحوي كل وقت واسكت يبقبو وحوي مركا لا يسع لي إلا إن ندي أمض مهنقو ودمان مركا وحوي وجددنا أعطينا تشجيعنا والمركا كل يرجلنا وحبر الشذا مركا وحوي إنتاصن أورانيا بدي وحلا بحية جوائزتي أما abaalmarinadii loogu talagalay ardayda macadka almanaar ee dadaalkoodii iyo juhdigoodii ku gaaray abaalmarintan wariye Cabdicasiis Asad Muuse Kibaar telefishinka caalamiga ee Bus TV magaalada Boorama.